Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 24. In our today's lesson, we are going to learn conversation 24 out of 100. And as usual, when we are taking conversation, we must have two people. The first one we use to take as A, and the second one we use to take as B. But before we start our lesson, let's look at our today's proverb, which is hope for the best but prepare for the worst. Hope for the best but prepare for the worst, of which we are going to discuss its meaning at the end of this lesson. So to understand the meaning of this proverb together with the lesson, just keep watching the lesson till the end. Ardayda qaaliga ha kusoo dhawaada Moonlight Academy. Kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharka 24aad. Casharka maanta waxaan ku qaadan doonaa conversation 24. Wada sheekaysigii 24aad. sida caadada inoo ahayd mar walba oo aan qaadanayno wada sheekaysi waxaa laga maarmaan ah laba qof. Qofka koowaad waxaan u qaadan jirnay A, qofka labaadna waxaan u qaadan jirnay B. Anta aanan casharka bilaabin waxaa caado inoo ahayd inaan qaadano hal maahmaah. Maahmaahdeenana maanta waa hope for the best but prepare for the worst. Micnaha maahmaahdan waxaan ku qeexi doonaa dhammaadka casharka. La soco casharka bilow ilaa iyo dhammaad si aad u fahantid micnaha maahmaahdan iyo casharka oo dhan. Let's start our lesson. What time is it now? What time is it now? Hadda waa meeqa saac? What time is it now? Hadda waa meeqa saac? Time waa waqti, now waa hadda. Marka what time is it now micnaheedu waa hadda waa meeqa saac? It is 8 o'clock sharp. It is 8 o'clock sharp. It is 8 o'clock sharp. Waa 8 saac oo gow ah. 8 waa 8, sharp micnaheedu waa gow ah. Marka it is 8 sharp waad dhihi kartaa waa 8 oo gow ah mise waa 8 saac oo gow ah. At what time will the flight arrive? At what time will the flight arrive? Flight micnaheedu waa duulimaad, arrive micnaheeduna waa imaasho. At what time na waa meeqa saac will the flight duulimaadu arrive ay imaanaysaa. Marka micnaha si kale haddii aan u dhigno waa at what time will the flight arrive? Imise saac ayay diyaaraddu imaanaysaa? Yacni diyaaraddii aad ku safri lahayd haddii aad rabtid inaad dad weydiisid duulimaadku goormuu bilaabanayaa, haddii aad rabtid inaad dhahdid mise diyaaradda goormay imaanaysaa, waxaad leedahay at what time will the flight arrive? Diyaaradda goormay imaanaysaa mise goormee ayay soo caga dhiganaysaa? At what time will the flight arrive? The flight will arrive 8:45. The flight will arrive 8:45. The flight duulimaadku mise diyaaraddu will arrive waxay imaan doontaa 8:45, 9 saac oo rubac dhiman. 8:45 micnaheedu waa 9 saac oo rubac dhiman. Marka 9kan loolama jeedo 9 saac, waxaa loola jeedaa yani 3 saac oo dhiman rubac. Yani waa la wada garanayaa saacadaha. 9 waa 3, 3na waa 9. The flight duulimaadku will arrive wuxuu imaan doonaa 8:45, 9 saac oo dhiman rubac.
marka to haddii la adeegsado waa dhiman, past haddii la adeegsadana waa dhaaftay. The flight diyaaraddu mise duulimaadku will arrive wuxuu imaan doonaa 8:45 sagaalkii oo dhiman ruba. At what time do you wake up? At what time do you wake up? At what time do you wake up? At what time hore ayaan usoo baranay meeqa saac do you adiga wake up aad soo kacdaa. At what time do you wake up? goorma ayaad soo kacdaa. At what time do you wake up? goorma ayaad soo kacdaa. I mostly wake up 10 past half. I mostly wake up 10 past half. I aniga mostly badanaa wake up waxaan soo kacaa 10 past half 10 saac iyo bar. marka past haddii la dhaho yacni saacadda lagu siiyey way li jirtaa, to haddii lagu siiyana way ka dhiman tahay. marka sidaas u fahan insha allah. I mostly badanaa aniga wake up waxaan soo kacaa 10 past half 10 past half 10 saac iyo bar ayaan soo kacaa. I mostly wake up at 10 past half. aniga badanaa waxaan soo kacaa 10 saac iyo bar. At what time do you go to bed? At what time do you go to bed? At what time meeqa saac do you go aad aadaa to bed sariirta. marka micnaha sidan ma ahan. haddii aan si kale aan u dhigno micnaheedu waa at what time do you go to bed. micnaheedu waa goorma ayaad seexataa. At what time do you go to bed? goorma ayaad sariirta aadaa. micnaheedu waa goorma ayaad seexataa. At what time do you go to bed? goorma ayaad seexataa. I usually sleep 20 to 9. I usually sleep 20 to 9 or 10 to 9. I aniga usually badanaa sleep waan seexdaa 20 to 9 sagaal saac oo ay ka dhiman tahay 20. marka to haddii lagu yiraahdo waa ka dhiman, past haddii lagu yiraahdana way raacday mise way la jirtaa. I usually sleep 20 to 9. aniga badanaa waxaan seexdaa 9 saac oo dhiman 20 daqiiqo oo micnaheedu ay tahay 3 saac oo dhiman 20 daqiiqo. iswadi hadda qofkaas imise saac ayuu seexday. wuxuu seexday 2 saac iyo 40. marka 2 saac iyo 40 ayuu seexday. or mise 10 to 9 9 saac oo ay ka dhiman tahay 10 daqiiqo. asagana goormuu seexday? wuxuu seexday 8 saac iyo 50 oo micnaheedu ay tahay 2 saac iyo 50 ayuu seexday. I aniga usually badanaa sleep waan seexdaa 20 to 9 9 saac oo ay ka dhiman tahay 20 daqiiqo mise 3 saac oo ay ka dhiman tahay 20 daqiiqo or mise 10 to 9 9 saac oo ay ka dhiman tahay 10 daqiiqo. waxaan soo gaarnay dhammaadka casharka, balse intaan casharka gabagabaynin waxaan dib ugu laaban doonaa mahmahdayni maanta oo ahayd hope for the best but prepare for the worst. Hope for the best but prepare for the worst. micnaha mahmahdan ayaa ah hope rajay, for the best wax wanaagsan rajay, but laakiin prepare isku diyaari for the worst wax xun. yacni wax fiican filo laakiin waxaad isku diyaarisaa qof la kulmi doono wax xun. tusaale haddii aan soo qaadano waxaa lagu yiri beri waxaad qaadanaysaa imtixaankaasi oo kaa qaadi doono company
aad shaqo ka raadsatay. Marka waxaad rajaynaysaa imtixaankaasi inuu noqdo imtixaan fudud, laakiin habeenkaas ha seexanin. waxaad diyaarisaa waxyaalo adag oo kuuga adag oo laga yaabo in lagu keeno imtixaankaasi, laakiin waxaad rajaynaysaa in uu imtixaankaasi yahay imtixaan fudud. si la mid ah, tusaale, safar ayaad aadaysaa, waa habeen madow. marka habeenkaas markaad safraysid waxaad qaadanaysaa qorigaada, mindidaada iyo tooshkaada, laakiin waxaad rajaynaysaa in aadan la kulmin wax xun, laakiin waxaad isku diyaarisay inaad la kulmi doontid tuug iyo wax la mid ah. adigoo isku diyaarisay sidaasi ayaad haddana waxaad rajaynaysaa inaadanba la kulmin tuugaas. waxaan rajaynayaa inaad fahantay micnaha mahmahdan. marka mahmahda waa hope for the best, rajay wax wanaagsan, but laakiin prepare isu diyaari for the worst, wax xun isu diyaari. okay, harmal ayaan dulmari doonaa casharka oo dhan. what time is it now? what time is it now? it is 8 o'clock sharp. it is 8 o'clock sharp. at what time will the flight arrive? at what time will the flight arrive? the flight will arrive 8:45. the flight will arrive 8:45. at what time do you wake up? at what time do you wake up? I mostly wake up 10 past half. I mostly wake up 10 past half. At what time do you go to bed? At what time do you go to bed? I usually sleep 20 to 9 or 10 to 9. I usually sleep 20 to 9 or 10 to 9. This is the end of our today's lesson. I hope inaad fahantay casharka waxaa idin socodsiinayay anigoo ah Cabdikariim Xasan. la soco casharka xiga oo ah casharka 25aad. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.